kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa Astaan Sports ku soo dhawaada kulan ciyaareed xiiso badan ee ka tirsan tartanka kubadda cagta ee Somali Premier League sida xiisaha leh kaga soconaya garoonka Banaadir Stadium ee magaalada Muqdisho qanada markaasi aadka looga jecel yahay dalkeena Soomaaliya ciyaartina waa la baastay markan ciyaartooyda kooxda kubadda cagta dekada ayaa wada ciyaarayaan oo baasteen kubadda شكور على يا مركز سمين دون جيس كلاد أما مركزي كورنا شكور أي صوتورن دونا شكور واو صوتور تكبدي واكن كروس دكد وايس لبودين أفكار الدين تجناحة وايس كسارن عيرتو إذا كوع تكبد عكت جديدك سيدنا قد دعوانا إنسان صاحب بيال دكد والو ورا يا مركز أفكار الدين تجناحة dekada ayaana markaa goolka lagu leeyahay laacib kore kooxda kubadda cagta dekada ayaa markaasi ka dhaliyay kooxdiisa hore goolka koowaad ee ciyaarta kadib kulankan uu ka hor imaaday sheekadu weli maraysa markan laad xora ay tuuranayaan Abbas Amin Abbas وكوعليس داود عبد الله توال ريد كار عيارتا يا لغا صار عياريان كلام بركشناده كوخدا كبدا عقتا ee dekada Samin Ali meel waxaanayo dhiga Cabdi Kariim Qubay golaaye Bilal Aadan Yusuf iyo tagtay wala soo gadii markan golaaye Bilal qaybta hore ciyaartan waa soo idlaatay labada kooxood ee kala gaadiidka iyo dekada gool eber gaadiidka ayaa ku horkacaysa Umar Cabdiqaadir Cartan ayaa laga sugayay inuu siriga yariyo waa uu yariyay ciyaartooyda gaadiidka ayaana ku badi baasteen markan waa kan Cabdiqaliif Cabdullaahi markan weerar waa kan Redmond wow red car ayaa markaasi la siiyay Roso kaarka Rosa ayaa la siiyay ciyaaryahanka lambarka afraad ee kooxda kubadda cagta gaadiidka Sadam Gab ayaa la siiyay kaarka Rosa kadib markii uu qalad ku galay xidiga lambarka 22 waa lambarka 24 ee dekada ninka lagu magacaabo Raidmon ayaa kubad Trubaasa oo Rosa qaybta sare ku socoto waxa uu ka helay ninka lagu magacaabo Abbas Amin Mohamed laakiin kubadii ayuu markaa dilay hadana ciyaaryahanka ayuu markaa isku sii dul tuuray kaarka Rosa ayaana la siiyay laacibka lagu magacaabo Sadam Gab laakiin Shakur ayaa looga tagay Shakur ala laacibka hore Elman Shakur manaqon golaya Bilal gooyay kubadda lagu toogaliyo saaxiibka isna Faisal Xasan Xaashi waa kan Faisal meel wacan ayuu soo dhigay Cabdi Kariim Qubay markan penalty ama gool kulaad ayaa markaasi laga dhigay ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee gaadiidka waxaa markaasi kaarka jaalaha la siinayaa mid ka mid ah xidigaha kooxda kubadda cagta ee gaadiidka Faisal Xasan Xaashi ayaa markaasi u keenay gool kulaadkan kooxdiisa kadib kubad uu Faisal la soo ciyaaray saaxiibka Cabdi Kariim Qubay waxa uu sameeyay meel wacan ayuu u dhigay Faisal waa u galay diirinta ganaaxa ayaa markaasi lagu taabtay penalty ayaana markaa loo dhigay Abbas عكت قاديدك تاسو نقولت قول دردي كوات كوحدان مادام قول كلاد ودلي كوحديسا وارتنا واي سو إلا تلبدا كوحود كلا دكدي سو كلا كوحدو كبدا عكتا قاديدك قول يا كوسو إلا تي